Audio Jungle. Con la che in hotel con la foto che energia va. Afarlaatankii November 1984 oo ku beegneed maalin Sabti ah garoonka diyaaradaha Muqdisho waxa ka kacday mid ka mid ah diyaaradii Somali Airlines oo nooceedu ahaa Boeing 707 338 flight lambarkeeduna ahaa 415 isla markaana uu duuliye ka ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi Xaaji Dhagax kuna sii jeeday magaalada Jiddah ee dalka Sacuudi Carabiya balse ku hakan lahayd magaalada Berbera ayaa afduubkeedu dhacay kadib markay 30 daqiiqo hawada ku jirtay diyaaraddaasi waxaa xoog kula wareegay 3 nin oo hubaysan waxaana isiri shirka diyaaradda laga hago xoog ku gal nin magaciisa la yiraahdo Cawl Cadam Duhaan oo dharka ciidamada markaas ku labisnaa isla markaana waxa isku marmartay gabar ka mid ah shaqaalaha diyaaradda oo magaceeda la oran jiray Sucaad Maxamed waxaana soo gaaray intii uu gabadha iska furfurayay afduubuhu nin kale oo isna ka mid ahaa shaqaalaha amniga diyaaradda Somali Airlines waxaana dhacday afduube Cawl Cadam inuu rasaas la beegsado ninkii u soo gurmaday gabadhii isku marbartay inta kadibna waxa midba meel u cararay shaqaalihii diyaaradda sidaas ayayna kooxdii afduubayaashu la wareegeen hogaankii diyaaradda magacyada afduubayaasha diyaaradda ayaa sida lagu sheegay lahaa Cawl Cadam Duhaan Baasha Muuse Maxamed Baasha Diig iyo Axmed Xaaji Maxamed Waraabe waxayna ku wargeliyeen duuliyihii diyaaradda iyo dadkii la socdayba inay diyaaraddu afduuban tahay isla markaana ay u hoggaansamaan amarka ay bixinayaan iyo halka ay doonayaan in laga dejiyo diyaaradda iyagoona ku amray afduubayaashu duuliyihii diyaaraddu inuu ka dejiyo magaalada Cadan oo xilligaas caasimad u ahayd waddankii la oran jiray koonfurta Yemen afduubkaas wuxuu dhacay dad argagixiso ah ayaa diyaaradii qolka noogu soo galay nin darees kabtan ciidamada asluubta labisan oo gacanta bastool ku haysta waxaa daba ordaysay ku dhaganeed gabadhii ugu sarreysay hoosteesyada Sucaado waana ay ku duubneed waxaa isla markaana daba ordaayay oo ku dhaganaa yar oo ah dadkeena diyaaradaha ka shaqeeya Cali ninkaana wuxuu qadiisu ahaa in uu xabadda ugu waxyeeleeyo si uu diyaaraddaas u hantiyo waxaa u dhici weyday xabadda oo uu la xarbinayay intuu dagaalkaas socday markii aniga aan isha ku dhuftay waxaanba u qabay qof aniga dacwad iigu socda ee uga aanan qabin qof oo annaga duulaan ugu ah markii ay isku qabsadeen ay ku dirireen oo aan u soo istaagay si aan u kala diriyo ayay xabaddiisii u meel martay uu ila soo aaday ganista uu xabadda gamayay ayaa isla markiiba waxaa haleelay yarkii Cali ahaa oo qabtay kuna dhacday xabadda kadib waxaa uu ka xoroobay dadkii ku deganaa annagii diyaaradda wadnay ayuu milkay oo uu bastooladiisii marxuum Maxamuud Xaaji Cilmi Xaaji Dhagax oo ahaa duuliyihii diyaaradda la afduubay waa uu aqbalay inuu qaato amarka ay duldhigeen afduubayaashu wuxuuna isku dayay inuu cagaha u dhigo garoonka diyaaradaha Cadan balse waxaa diiday
dowladdii koonfurta yemen in diyaaraddaasi ay ka soo degto cadan waxaana xilligaas afduubka diyaaradda Somali Airlines si dhow u ogaanaya caalamka intiisa badan waayo dowladdii koonfurta yemen waxay afduubka diyaaradda iyo xogteedaba la wadaagtay meelo badan oo ka mid ah caalamka halka dalal badanna jubbii horeba ay ka war heleen afduubka diyaaradda Boeing 707 mar kale saddexdii nin ee diyaaradda afduubtay waxay duuliyihii ka codsadeen inuu Jabuuti ka dejiyo laakiin markiiba intay ka walaaceen ayay ka dalbadeen in laga dejiyo dalka Liibiya wuxuuna ugu jawaabay duuliye Maxamuud Xaaji Cilmi Xaaji Dhagax inaanu gaarsiinayn shidaalka diyaaradda ku jira dalka Liibiya markaas kadib ayay afduubayaashii mar kale go'aan kama dambaysa ku gaareen in laga dejiyo caasimadda Itoobiya ee magaalada Addis Ababa sidaas ayuuna duuliyihii diyaaraddu ku aqbalay inuu fariisiyo Itoobiya abaaro 11kii barqanimo 24kii November 1984 Somali Airlines waxay soo caga dhigatay garoonka caalamiga ee Bola International Airport magaalada Addis Ababa iyadoo sida daddan 130 qof oo 118 qof oo kamid ah rakaab yihiin iyo 12 qof oo shaqaalaha diyaaraddaas ahaa rakaabka diyaaradda waxaa ku jiray 7 qof oo ajnabi ah laba kamid ah waxay u dhasheen dalka Italy ama Talyaaniga laba qofna waxay u dhasheen dalka Yemen ruux diblomaasi ah oo u dhashay dalka Masar iyo muwaadin u dhashay dalka Mareykanka isla maalintii oo ku beegneed markii uu dhacay afduubka diyaaraddaas wuxuu wada hadal u furmay dowladda Itoobiya iyo afduubayaashii diyaaradda waxayna afduubayaashii ugu horreyn ogolaadeen inay sii daayaan 15 dumar ah iyo 4 carruur ah oo diyaaradda saaraa iyo weliba 3 qof oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ahaa oo midkii dhaawac ahaa uu ku jiro afduubayaasha oo uu u hadlayay hogaamiyahoodii Cawil Cadami Burhaan wuxuu dalbaday dilka lagu fulinayo Beritoole oo ahayd Axad 25kii November 1984 toddoba arday oo ku xirnaa jeelka Mandheera in la joojiyo iyo in maxaabiis u xirreed arrimo siyaasadeed oo 14 qof ahaa la sii daayo loona gudbiyo waddanka Jabuuti wuxuuna si cad ugu sheegay Cadami afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Tafarraq Gizow haddii ardaydaasi berrito la laayo inuu isna mid u toogan doono saraakiil ka tirsaneyd dowladda Soomaaliya oo saaray diyaaraddaas kuwaas oo ka mid ahaa barasaabkii gobolka Hargeysa ee xilligaas Generaal Ibrahim Cabdi Muuse Afgaab sidoo kalena uu gabi ahaanba qarxin doono diyaaradda reeleen u soo dhaweeyay ummadda Soomaaliyeed madaxda qaranka oo dhamaantoodba ay shucuurtooda ka muuqato si farxad leh taasoo ah wax lagu farxo cadow Maaliya labanta koonfureed iyo labanta waqooyi iyo Talyaani Mareykan maanta waa inoo farxad iyo reereen haddii aan inagoo faraxsan diyaaradii oo dad qabta iyo rakaabkeedii ay ka soo degtay garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho si wanaag noo ah maanta inaad u jeedaan rakaabkii Soomaaliyeed ee lagu afduubay diyaaradda Boeing 707 oo sidii rakaabkii Soomaaliyeed oo dhigay qofkii inta farxad iyo reereen lagu soo dhaweeyay iyadoo madaxda Soomaaliyeed ay diyaar u tahay in ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ka soo silbadiyay gacanta gumeysiga iyo argagaxada kooxoneed ee dhawaantaana afduubtay ay maanta ka soo degeen iyagoo bad qaba dhamaantoodba dhibka ugu weyn ee xilligaas jiray waxay ahayd ma jirin wax xiriir diblomaasiyadeed ah oo u dhaxeeya dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya waxaana u kala dabqaadaysay dowladda Talyaaniga oo laba muwaadin oo u dhashay dalkeeda ay ka mid ahaayeen rakaabkii lagu afduubay diyaaradda waxayna u xil saartay arrintaas inuu galo safiirkii magaalada Addis Ababa u joogay xilligaas wuxuuna noqday arrinkii in afduubayaashu waxay dalbanayaan loo gudbiyo dowladda Itoobiyana ay u sii gudbiso safaaradda Talyaaniga markaas kadibna Talyaaniguna uu u soo gudbiyo xukuumaddii Muqdisho kana soo qaado waxay ku jawaabto dalabka uu soo bandhigay Cawil Cadami oo horay uga tirsanaan jiray ciidanka asluubta dowladda kacaanka Soomaaliyeed wuxuu la yaab ku noqday saxaafaddii iyo dowladihii caalamka xilligaasna saxaafad badan
ayaa u timid magaalada Addis Ababa inay ka soo warramaan abaaro ka dhacay dalka Itoobiya balse waxay hawlahoodii u wareejiyeen inay ka soo warramaan xaaladda iyo afduubka diyaaradda Somali Airlines isla habeennimadii Sabtidii oo ahayd 24 November 1984 waxay dawladda Soomaaliya ku soo warcelisay inaanan jirin cid berritoola la laynayo waxay kaloo sheegtay inaysan ogolaan doonin waxay afduubayaashu dalbanayaan muddo 5 jeer ah oo ay afduubayaashu marba dib u dhigayeen xilliga kama dambaysta ah ee ay qarxin doonaan diyaaradda Somali Airlines aakhirkii wadahadalkii waxaa toos u soo galay 27 November 1984 madaxweynihii Soomaaliya ee xilligaas Maxamed Siyaad Barre wuxuuna maalintii ku xigtay oo ahayd 28 November 1984 uu soo saaray war-saxaafadeed laga akhriyay raadiyo Muqdisho kaas oo uu ku shaacinayo in dawladda Soomaaliya aqbashay dalabka afduubayaasha diyaaradda isla markaana ay joojisay dilkii ay ku fulin lahayd dhalinyaro u badnayd arday dhawaaqaas dawladda Soomaaliya ka soo yeeray wuxuu soo afjaray 75 saacadood oo wadahadal ah oo u socday iyaga iyo raggii afduubay Somali Airlines waxaana go'aankaas ka soo baxay fiilla Soomaaliya aqbalay afduubayaashii oo ooda ka qaaday isla 28 November 1984 rakaabkii saaraa diyaaradda Somali Airlines kadib markay sii daayeen diyaaraddii waxaa qolka nasashada ee aeroboortka Addis Ababa shir jaraa'id ku qabtay Cawl Cadami waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ma nihin annagu argagixiso waxa kaliya oo aanu diyaaradda u afduubnayna waa inaanu badbaadino walaalahayo waxaana sidaas nagangelyo ku siisay dawladda Itoobiya ee xilligaas Cawl iyo 4 nin oo la socday kuwaas oo kala ahaa mid ay hawsha ku wada socdeen oo baasha diig la yiraahdo iyo waraabe oo markii ay diyaaraddu hawada ku jirtay ku biiray afduubkooda iyo 2 nin oo kale oo ku biiray markay diyaaraddu soo fariisatay Addis Ababa taariikhdaas la afduubay diyaaradda Somali Airlines waxaa meel xun marayay dagaallo u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo jabhaddii ka diriraysay qaybo ka mid ah gobollada waqooyi ee SNL Somali Airlines ilaahay nabadgelyada ku keenay dhulkooda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay abaalkoodana aanan gudi karin shucuurkii ay noo muujiyeen ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha dawladda Soomaaliyeed waan ka filaynay walaalaheen haddana waxaan idin sheegayaa intii aan ballan qaaday oo ahaa wixii ku saabsanaa markaan joognay Itoobiya in markii aan la xiriiray dawladdeena intii in ka badan inay idinka ballan qaaday waa mahadsantii anigoo magaca rakaabkii saarnaa diyaaraddii Somali Airlines dhibaatadii aad wada maqlayseen ay ku dhacday ilaahi jabbaarka ahaana naga soo celiyay annagoo nabad qabna waxaan mahad buuxda qiimo iyo qadarin mudan ammaan ballaaran leh u soo jeedinayaa kabtankii wada diyaaraddaas iyo caawinayaashii goonihiisa fadhiyey
iyo dhammaan shaqaalihii diyaaraddaas ka shaqaynaya oo idil. marka labaad waxaan ammaan iyo mahadnaq ballaaran qadarin ballaaran leh u jeedinayaa dowladda Soomaaliyeed ee madaxweynaha aan jecelnahay Maxamed Siyaad Barre hogaaminayo iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad iyo kan saddexaad iyo dhammaan guddiga siyaasadda kan labaad iyo raallahada waa saase kan koowaad iyo kan labaad waa raallahada way iska adduunka tabaarihiisa waa jidbaysnaaye waxa weeyaan sidii aanu soo marnay sida daqiiqad quran naloo halmaansiiyey aad iyo aad baan jecel madaxweyne ku-xigeen ku maadsanta safgarato xogeeyaha guud ee xisbiga hantiwadaha kacaanka Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ha noolaado cadowga ummadda Soomaaliyeed ha jabo xisbiga hantiwadaha kacaanka Soomaaliyeed ha guulaysto madaxda dawladda Soomaaliya ha noolaato jaalle gudoomiye ku-xigeenka koobaad madaxweyne ku-xigeenka koobaad hogaamada wasiirada dhammaanba madaxda dawladda oo halkan hadda joogta waa salaamantiin anigoo ku hadlaya sidii saaxiibaday iga horreeyey magaca maxaan ku dhahay rakaabkii saaraa dayuuradii la aftuubay ee shirkadda Somali Airline kuna soo nabad noqday dalkoodii hooyo waxaan marka hore mahad koobaad u celinayaa Ilaahay oo aan leeyahay Ilaahay baa mahad